geed la harsado waxaa tahay hooskiisa haddii hurdo la seexdo waxaa tahay riyadeyda haddii abaal la galana waxaa tahay naf naxariista lagu dhalay haddaan ruux jeclaadana waxaa tahay nafteyda ruuxay u bugto markaad qoslayso waan ilmeeyaa markaad ilmaysana waan farxaa aniga sababta maxay tahay markaad qoslayso waxaan la ilmeeyaa inaan farxadaada mar waliba aan waayin markaad ilmaysana waxaan la farxaa jaceylkaad aniga ii qabto heerka uu ka gaarsiisan yahay xaggaaga calafka sidiisaba waqti ayuu leeyahay aniga inaan nahay laba qof oo isqabto oo kale ayay niyadeyda ii sheegaysaa maxaa yeelay isku hami ayaan nahay waana kugu kalsoonahay adiga waxaan hawl ku qabtaa oon ku shaqeeyaa waa xusuustaada hawl walbo ii taalo intaad niyadeyda ku jirto ayay si fudud iigu dhammaataa aniga waxaan ahay ruux farxadiisa ku xiray farxadaada 1,000 sano hadda kadib haddii ay nafta igu jirtana waan ku sugayaa adiga markaan arko ciyaal yaryar oo labisan waxaan ku fakaraa maalintiina goormaa ayay noqonaysaa oo aad ubadkiina sidaan u wada daadahin doontaan waan kugu kalsoonahay aniga haa waan kugu kalsoonahay ifka intaan ku noolahana adigaan ku sugayaa farxadeyda waa adiga noloshayda waa adiga hamigayga waa adiga ruuxaan sugayana waa adiga geed walba oo dunida ka baxa miro ugama soo dhaco sidaad adiga niyadeyda ugu soo dhacdo saacad iyo sikinba qof adiga oo kale in la helo waa mid adag haddii la helana in la cidleeyo waa mid ka sii adag haddii la cidleeyana in la ilaabo waa mid zaa'id uga sii adag ifka intaan ku noolahay ku ilaabi maayo ogow adigaan dadka kuu jeclahay عاشق دبتا روحي دمنا شو كما درقي وكوبا درسا كستو يدهان ويكالا دينتي qofka kugu dhexnool sidoo kula dhashaado